أنا مسلم ولي عزة بديني، وخير الزرع تجنيه اليديني، هويتنا تبينها قيمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. ودرسيغاني اللحاد متنغي أبو الشجاع كتاب كاني فقه أها waxaan ku soo jirnay weesada waxyaabaha ay ku burto. kitaabku wuxuu na yiri weesadu waxa buriyahay waa 6 arrimood. midka ugu horeeyaan soo marno labada jid wixii ka yimaad alqubul wadubur baa looga jeedaa wax walbo ka soo baxa ayaa weesa buriye. waxa kale weesa buriye wan nawm hurdada ay ku burtaa weesadu. noomkaasoo calaa qayri hay'atil mutamakkini midkii makaniyey hay-adiisa qayrkeed ahaaday. hurdo oo qofku markuu hurdayo qof salkiisa meeshii makaniyo qabadsiiyey qayrkeed ku hurday weeyaan. macnaha salkiisa sax uma qabadsiin meeshii uu fadhiyey ma makanin qaabkaasuu ku hurday. ama markuu hurdayo haddii salkiisa uu meesha uu ku fadhiyo qabadsiiyo ama guri korkii ha fadhiyo ama baabuur dushii ha fadhiyo ama macnaha waxa way dhul ha fadhiyo meesha oo fadhiyo hadii salkiisa iyo asaga aysan waxba kala xigin baa la yiri asagoo makaniyay oo sida uu hurdo murabbac midalan baa lagu midaali jira asoo fadhiya sida haduu ku hurdo weesadu ka buri mayso. laakiin haduu hurdo calaa qayri hay'atil mutamakkin asagoo qaabka u fadhin oo salkiisa aan makanin dhulkii haduu hurdo weesadu way buraysaa weeyaan. waxa laba kala ah النوم والنعاس والله بحقون إليهن. قفكو هدو للموضة نعاس كويسك وما برت. قفكو وامركو هردادة باللو قيدا ايتاهي. نعاس كي النوم كمحاوك لفرقعه وحالو كلا يقان. نعاس كوحال يرددك هذا الكودو ومغليا. لكن مكلا ساري كروحي دهان. هدو هدي لو يديو. لو دكتا وقرعي وحي موقتها لكن مشي كروحي لهايين. وهردادة باللو قيدي ويسك وما برتتاس. لكن نومك وحلا لهي ما بقى قفك وابتي قفكاس عادي بوردي ولو دقيقة ده بهرديه مر هدي او هردو ويسدو بوري ميس هدي لا شكيو ما هردي ما سما ادن هردين تاس مسلك على الاده ومحا حقنا وحا حقنا الشك لا يزال الا بيقين وحا ليرهدا وحا وي دهارده اما حقنك وحا ويان يقينتا لا يزال بشك. اليقين لا يزال بشك. شك لغو مزوليه يقين محا كوا وحا يقين كوا الظهارة مر هدي أضبطي شك لغو زولين ماي والظهارة قبتا ويان وحا اللي يرهدا يعني شيء استصحاب الأصل قفكوا ونقاط أصل محا الظهارة دي بقبصانية ومركو شكيه مركا أصحابة النبي وحا صائرتي مسلدان أيغو عشاها مركا الدكادو عشاها سوغيه ayay hurdoo jireen baa la yiri ilaa garkoodu oo jilbaha uga dhaco oo halka jilbaha ay ku dhifsadaan saas bay gaari jireen mana weesa qaada jir nabigu markuu cishaha yimaado ay la duka jireen kaleey salaatu wasalaam. marka qofku haduu sida ku hurdo mutamakkinka ah weesadu ma burto. laakiin haduu calaa qayri hay'atil mutamakkin ku hurdo weesadu way burti. noomku inuu weesa buriyo maxaa u daliil hadii la yiraahdo حديث أولنا سيدنا علي بن أبي طالب إلهي رضيها كان نغضيه وابن ماجه هي غير كده بيصور ريان قال وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاء السهي العيناني لبدا دبرك حرقيس إيه حرديسو واللبدا إن رضبو النبي يري فمن نام فليتوضأ قفكي هرده هو سقاط يعني مركي ايه قفكي هرده حرقي وفرم يا ويان. hurda weesa ku burta marka lagu oranayo ambiyada kuma jiran ogaaw ambiyada haday iyagu hurdaan weesadoodu ku burimaysa weey nabigeena soo iska hurdaya ba weesana ka burayni. waxa kale weesa buriya wazawalul aqliga oo suula bisukrin wareer bu ku suuli oo maradin ama jiro ku suuli. mar hadii qofka aqligiisu oo suulo ama waalibo ku suuli ama wareer bu ku suuli ama mir daboolan ama xanuun kale hadii mar aqliga qofku isbedelo muxuu noqonayaa aqligaagu mar haduu suulo weesadii waa burtay weeyaan. weesadu waa burtay aqligu mar haduu tago weesadu waa burtay weey taana weesadu way ku burtaa baa leeyahay.
زوال العقل بالجنون باللغة قياس قات يو الإغماء والسكر سواء كان هذا الزوال قليلا أو كثيرا مر هدي هردا ويسا كبر اللي يري عقل قدن هدو تغو لأنه أبلغ منه في معناه وبكحي اللير يصوماه إلا هردا دي بكسي اللير يهي ويسد وصغنا وكبرته وحكالو ويسد برياه ولمس الرجل ننك تاب شديس المرأة أو طابته مرأة الأجنبية أجنبية كهدويا ننكو هدو طابته قبر أجنبية أو شركة أو طابته من غير حائل تاد لأن أو طابته وحبا أيضا كلا حقن ويسدوا بري سويا قبر أجنبية مر هدو طابته بالويري أجنبي محا كبحي محرم محال اللي يرهده محرم وحا اللي يرهده من حرم نكاحها بالنصب أو رضاع أو مساهرة باليرة قبل النكاح يدو حرام كايهي أو النصب كا حرام يلي قبل ولا لباتين اسكو هوياتين اسكو آباتين آبي هويا اسكو تين داربتين ولا لب أيضا نقطين صماء إيد يكون نقط أما هو هبريرتا أما هو هويدا أما هو قبل نادي أبتي بعض أطهي أدير بعض أطهي وكاس آبيهد باتوا قبل نادي mar haddii maxram qofkii uu kuu yahay muxuu weyse kaa jebiyaa maxram weeyaan markuu noqdo weyse kaa jebi maayo nasab uuna ku yimid intaasoo dhami ridaacuna waa intaasoo kale ku imaanaya nuugmada nabigeenna hadda calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahay walaalo xagga nuugmadaasoo ma aha laakiin xagga nasabka walaal ama lahay nabigeennu madiibuu ku ahaa marka haddii qofkan aad walaal noqotiin oo nuugmada aad walaal ku noqotiin seed walaal ugu noqonaysiin مثلا بقبضان هويدا با نوجدي ايادو هل سنه جيره بي نوجدي شن مر او كلا بدلن بي عانا سيسي ويان او ناس كيد وديس هل مر كلي واحترميس لبنا واحترميس وشن مر قفكو انو لبا سنه كهورينا وا شردي اي قف وين نوغمل نوجيا معنا كما فديسو قف وين نوغمل نوجي غبر يرو معنا افرجيره مثلا بدين نوجيدا غبر افرجيره تاس وحبا يدا معنا ما كينيس waa inuu caanu yar yahay la rabaa qofka marka sida ay noqonayso marka hadii hooyada ay soo korisi oo hooyada nuujiday gabadhi maxay kula noqotay walaal bay kula noqotay mahram bay ku noqotay weesada ka burin mayso ajnabi kama aha nikaaxu ku qaban maayo isdhaxli maydin laakiin dhinaca markii laga fiiriyo mahramkii la mid tahay weeyaan gabadhi kula dhalatay iyadu way isla mid nabigeena wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam nuugmada ku xarima ma yaxrumu min an-nasab nasabka wixii xaraam ku noqda ayaa nuugmadan xaraam ku noqonaya weeyaan ama waxay mahram kuugu noqotay oo musaaharatin waa qaybta saddexaad xididka weeye musaaharadu waa xidid midalan gabadhan waxa weeyaan gabadha aad qabto midalan baxaaskaaga oo kaleeto hooyadeed maxay ku tahay waa mahramkaaga hooyada bay la mid tahay weey yani guurkeedu weligeed ma ku banaana guurkeedu ma ku banaana gabadha markaad guursatay adiga oon macnaha waxa weeye aan xataa weliga aan wada kulmin hadaad furto hooyada xataa ma guursan kartid laakiin hooyada hadaad guursato ee hooyada sida quraanka ba naskiisa ku cad suuratu nisaa looga sheekeeyo adoon hooyada aan marnaba wada kulmin hadii ay kala tagaan midalan gabadheedii waa guursan karaa haddaan weli wax duquul dhicin waa kala bedelayiin bilcagsi maragta waa kala bedelayiin لكن بكل حال مر والبا maxaa ku imaanaya maxramnimadii waa ku imaanaysa maxramnimadu way ku imaanaysaa weeyaan oo gabadhan hadaad guursato midalan ba hadaad hooyada guursato gabadhi maxay ku tahay gabadheedii waa maxramkii laakiin markii maxramkii guurkeeda iyo wixii dhan ka xaraam noqonayaani waa goorma waa markii hooyadii aad wada kulantiin baa lagu yiri laakiin hooyadii hadaad qabto waliba ha wada kulminina gabadhi maxay ku tahay gabadhi maxramkaagii noqotay maxramkaagii noqotay weeyaan maxramkaagii bi gabadhi noqotay marka gabadhi dhinaca markii ridaaca waxaan rabaa musaaharada la yiraahdo ala xaasil dhinacaas kale ka imaanaysa waxa kamida midalan aabaha islaanta oo qabo oo kale waa la mid waa iyaduna waxa weeye musaahare ku timid weey qaybahaas oo dhan ba kamid noqonay ajnabi mar hadii la yiri gabadhi ilma abtiga aad ahaydeen ama ilma adeerka aad ahaydeen ajnabiga kamid tahay midaas ayaduna waa ajnabi weeyaan ajnabi bay ka tahay mar hadii ajnabi ka tahay ayada waxa weeyaan weesada way ka burinaysaa gabar walba oo ajnabi ka hadaa taabato ala xaasil oo min qeyri xaailna taabato weesada way buraysaa
taabashadan maxaa u shardi ah labada qofood oo istaabanaya waa laba qofood oo kala ah dhakarin wa untha waa inay kala jinsi noqdaan waxa kaloo shardi ah balaqaa xadd shahwa xaddu shahwa inay soo gaaraan ayaa shardi ah da' lagama fiiriyo weyse burinta marka la marayo qofkaani meeqa sano jiraa maba la yidhaahdo ee maxaa laga fiiriyaa qofkaanu xaddul ijtihaa ma soo gaari xadkaas ma soo leeyahay asagu gabadhaanu 15 ma gaarta iyo xayd ma ku dhaca iyo waxa weeyaan xulmigii ixtiraamkii iyo ma laga fiirinayo waxaa laga fiirinayaa marka qofkaani uu muuqdo gabadhan dadka waa wanaagsan oo taqiyaalka ah oo qalbigoodu wanaagsan yahay oo wax yaroo xumaanaba aan ku leexanin markay u jeedaan inan la guursan karo ma u muuqataa weeyaan haddii qof nuucaasa oo guurkeeda la ijtiheeye ay tahay weysada waa burisaa wiilkuna waa sidoo kaleeto bilcaks sidoo kaleeto weeyaan marka haddii laba qofood nuucaa istaabato oo labadoo mid walba xaddu ijtihaa u gaaray weysadu maxay noqonee waa buraysaa weeyaan kas hadday isku taabtaan weysada waa buraysaa kama hadday isku taabtaan weysada waa buraysaa haddii ay labadoodu ay waxa weeye muslim iyo xataa gaal kale yihiin weysada waa buraysaa weeyaan mar walba weysada waa buraysaa weeye qasad ima aadan taaban maanaa dan kaa lahay sheekadan ah maanigaa dan kaa lahay qolo aan wax looga jeeda diinta aqoon ayaa hadda macnaha waxa weeye aad u bunbuuninaysa laakiin xagga taabashada a'immada islaamku way ku kala bedelan yihiin laakiin annaga madhabkeenna imaamu shaafici daliilka uu qaatay waxaa la yidhaahdaa waa midka ugu axwadsan weeyaan kan ugu dadaalka badan waxaana sidaasoo kala qabay sayidina waxa weye cabdillaahi ibni cumar iyo saxaabtii rasuulka qaybo badanoo ka mida iyo salafkii iyo mar haddii aad qofka dumarkaa taabato taabashaa la yidhi ow laamastumun nisaa bay deliishadeen qur-aanka haddii aad dumar taabataan baa la yidhi mogta lama dhihin jimaac lama odhan haddaad u taabataan biqasdin lama odhan haddaad u taabataan bishahwatin lama odhan taabasho mudlaqa baa la sii daayo weeyaan masigana waxaa la yidhaahdaa gacanta oo shayga lagu taabta ayaa la yidhahdaa mar haddii taabasho ay timaado gabadhu weysada waa burisaa haddii aad cijida ka taabato weysadu kaa buri mayso haddaad iligta ka taabato kaa buri mayso haddaad timaha ka taabato kaa buri mayso meesha laga taabtay bashar waa inay noqoto marka la taabanayo min qayri xaa'ilin baa shardi ah waa inaan waxba idinkala xigin oon mara idiin dhaxaynin marka la taabanayo weeyaan markaasi weysadu buraysaa sawjadii aad qabtay baa soo gelaysa xaaladda adigu aad qabto ajnabi xaaraam kaama aha oo nikaaxana kuu baneeyey laakiin maxramkaagi maa zawjadaadu dad baa waxay isku khaldayaan aniga zawjadayda miyaa iga ajnabi ah haddii aysan gabadhaani ahayn qof aan nikaaxeedu kuu bannaanayn maba aadan guursateen marka dumarka aad guursatay waxaa ka mariyey caqdiga nikaaxoo maanta idinka dhexeeya caqdigaanu haddou maanta dhammaado oo caawa uu joogsado gabadhu maxay noqonaysaa ajnabi bay kaa noqonaysaa halkii shalay joogtay ku laabato soo ma aragtid marka waxa weeyaan xukunkii sharciga ahaa waxa macnaha bedelay oo xalaaleeyey oo gabadhan awal shalay ay joogtay nikaaxa shalay markay ajnabiga kaa aheed oodna khilwadu idinma bannaanayn jirkiinnu inuu istaabto idinma bannaanayn inaad meel wada joogtiin ma idiin bannaanayn laakiin maanta nikaaxaana idiin baneeyey intaasoo dhan soo maaha nikaaxaanu laakiin ma bedelin weesadii waxba kama bedelin weeyaan weesada waxba kama bedelin marka taasna sidaas baa la yidhaahdaa oo sawjada aad qabto weesada way kaa burinaysaa cala xaasil weesada waa kaa burinaysaa weeye haddii la yidhaahdo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dumarkiisii qaybo ka mida ayuu qabbala bacda aswaajihi salaad buu aaday mana weese qaadan xadiidka ku soo arooray waxay leeyihiin imaam albukhaariya ugu weyna waxay leeyihin waa daciif fili xadiiskaas waa daciif bay leeyihiin waxaa kaloo la yidhaahdaa waa mansuuq waa xukunka waa la nasakhay waxaa kaloo la yidhaahdaa ow mukhtasun calaa rasuulillaah nabigu gooni ku ahaa oo nabiga xukunkii u bannaanoo dhamme adna kuma bannaana waxaa kaloo dhici kara oo ixtimaal ku jira marka umuna caaisha ay leedahay nabigu asagoo salaatuleyl tukanayaan lugahayga fidsanayay faqamazani waa kaas asagoo daciif maaha waa sax xadiiska saxiix weeyaan waa i tuujinayo waa i qanjaruufanayay lugahan ka laabanayay iyo midka haddaan sheegnaba waxaa dhici kara in xijaab ka xigay
oo mara u dhaxayday min qayri xaa'ilintaan in xaa'il u dhaxeeya baa dhici karta idaa waqtigii ixtamala ou ixtimaalo addaliilu daliilku fil amrayni laba amar marka uu ixtimaalo saqada wejhul istidlaal baa la yidhahdaa daliilkii loo daliishan lahaa xukunkaanu wuxuu ku cad yahay inaan dumarka aad qabtaa weyse kaa burinayn waa dhacay xukunkaas oo dadka u daliishanaya axaadiistaas inaan zawjadu weyse burin cilmiga usuulka qaacido ku qoran bayse xataa fahamsanayn qaacido waxaa ku qoran ah waxa weeyaan shayga haddii ixtimaal idaa warada alixtimaalu saqada alistidlaal qaacida baa soo arortay haddii xukunkaani laba xugun yacni laba daliil uu yeelan karo daliil looma qaato laba wejow daliil u noqon karaa in mara ka xigtay inaysan ka xigin mar haddii labadaa daliilba uu yimid lama dhihi karo xukunkaani wuxuu ku cad yahay zawjadu weyse ma burido lama dhihi karo weeyaan masalada ugu dambaydo weysada burida waa masu farji aadamiy aadamiga farjigiisoo la taabto ayaa weyse burida bibad aadamiyaa la yidhi dad baa xoolaha ku soo daray xooluhu kuma jiraan oo geela iyo ariga iyo looda hadday saa u taabtan u malayn weyse ka burayso waxa laga hadlaa waa bini aadam horta arag marka horeba aadamiga farjigiis aadami mar haddii la yidhi naftaadii baa soo gelaysa safiinaha midka safiina salaadka waxaan ku soo marnay walow liwaladihi saqiiri canuga qofku asagu ou dhalay xataa hadduu taabto asagoo weyse qaba oon waxba ka xigin gacanta intaa isqabata weeyaan suulkana saa marka laysku saaro daahirkaani kuma jiro faraha geesahoodu kuma jiraan intaa isqabata haddii adugu aad xubinkaa ku taabato ama aad waxa weeye qof kale ka taabato weysadu maxay noqonaysaa weysadu waa buraysaa weeyaan wa masu farji alaadamiy ayay weysadu ku burtaa aadamiga farjigiisii oo la taabto bibaadini ilkafi calaa casha beerkeedan lagu taabto wa masu xalqati duburihi duburkiisa wareegeeda xalqada duburka inta ah yacni qubulka hore waxa weeyaan qadarka la yidhaah shufratayinka dumarka waatan la yidhaahdo ninkana qadrulqasabada inta ah xubunka ah waatan weysada intaasa weyse burida xalqadan dambe duburkana waiskala mid weeyaan qofku waxa weeye markuu istaago inta uruurta mandama inta isku dumanta ayaa la yidhaahdaa hadduu taabto weysadu way buraysaa cala aljadiidi haddaan qabanno qowlka jadiida jadiid waxa weeyaan waa iftihii imaamu shaafici uu bixiyey waqtiyadii dambe oo raajixa ahaa oo masar uu jooga weeyaan halkaa waxaa noogu dhammaaday darsigeennii 6 ee kitaabkeennii abushujaaca ilaahay ha nagu anfaco hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu